بسم الله الرحمن الرحيم golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar golaha wasiirada oo ku saabsan Jubbaland. goluhu markii uu arkay qodobada 99aad iyo 100aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu arkay qodobka afraad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee sareynta dastuurka markii uu arkay qodobka 55aad sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka ee dhisaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha kaasi oo u xil saaran maamulka doorashooyinka dalka iyo maareyntooda heer kasta si loo helo doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan daahfuran isla markaana xor iyo xalaal ah. golaha xukuumaddu markii uu arkay qodobka 56aad sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka ee nidaaminaya xilka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha markii goluhu uu arkay heshiiskii golaha wada tashiga qaranka oo ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo ay ku jirto dowladda Jubbaland ay ku gaareen magaalada Muqdisho taariikhdii markii ahayd 27kii bishii Maajo 2023 markii uu arkay qodobka 7aad ee nuqulka asalka ah ee dhaqangalka ah ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ee dhigaya in madaxa xukuumadda dowlad goboleedka aan la dooran karin in ka badan 2 muddo xileed. golaha isagoo tixraacaya dhaqangelidda xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markii uu goluhu tixgeliyay waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran dowladda in ay dalka ay ka hirgeliso nidaam dimuqraadi ah oo dadweynuhu doorasho xor ah oo qof iyo cod ah ay ku doortaan wakiiladooda iyo madaxda hogaaminaysa ee heerarka kala duwan ee golayaasha deegaan dowlad goboleedyada iyo qarankaba waxa golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray qaraarkan soo socda. qodobka koowaad sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee Jubbaland. golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 55aad iyo qodobka 56aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan talaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee Jubbaland. hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay. isdoorashada guddoon baalmarsan sharciga oo uu soo xushay hogaamiyihii hore ee Jubbaland. isdoorashada hogaamiyihii hore ee Jubbaland. goluhu haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan talaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha.
xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam. qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre. wabilaahi